السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكنا waa SIDA production oo barateen barashada cilmiga mutarka. Casharkeena maanta oo noqonaya casharkii 42 waxaynu ku soo qaadan doonaa sidee ayaynu hool ugu qaban karnaa ama kor ugu hayn karnaa alaab meel nooga timi oo wax naga dhiman yihiin si aan wax xaqiijino wixii naga dhiman. Waxa tagi doonta halka ku qoran tahay receive vouchers alaabta ku timi. Alaabta ku timi marka sidaa u soo furtid halkan ayaa tagi doonta waxaad soo dooran doontaa kaaga timo warooda home decoration marka saa aad u qortid rooda home decoration halkan ayaa sii tagi doonta waxaad tigta ka qaadan doontaa mark this voucher as already paid dabeetana waxaad la doontaa voucherka ay alaabtu ugu timi waxa weeyaan INV number 4441 waayahay date ka timina waxaan leeyahay waxay timi maanta oo ay bishu tahay 12 haddaba 12 ka dooran maysidee waxa dooranaysa maalinta ka horeysa Britoola 12 noqonayso saas ayay bishu markaas ku noqonaysa kalaws markay iska tiraahdid dabeetana waxaad la doontaa alaabtii markaas ku yimaanaysay waayahay salid macsarada ayaynu markaas dib keeni doonaa salid macsarada ayaa waxa yimaanayay unit kaanagoo dooranaya kartoonka waxa yimaanayay boqol kartoon laakiin 80 ayaan hayaa kartoon 80 kartoon ayaa yimi 80 kartoon oo ah 5160 ayaa yimi dabeetana si aan markaas u xaqiijino waxa siiga dhiman yihiin waana hortay hold put on hold yaada kor waxayda dhig waana dhaxda waayahay si aragtid tii hore hold receipt waxa kana waa hold features click marka siisid sidan ku dhufatid oo dabeetana soo furtid halka ku joogi maysidee waxa si dooranaysa unhold kor haynta ka qaad dabeetana marka saa uga qaadid waxa doonaysa save and breed marka tiraahdid waa si fiyu garanaysa waliba fiyuda ayaa si tagaysa hadda waxaad aragtaa item numberka oo number 4 ah in item name ku ahaa salid kartoonka intaas ku jirto 8 kartoon yimi kartoonka inta laga siiyay totalku intaas noqday invoice voucher kuna waxa intaas casharkeenana oo casharkii 42 halkaas nagu jooga wassalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.